isku kayna isla iyadoo ay maanta ku beegan tahay maalintii koobaad ee isku soo baxyada xisbul xaakimka kulmiye ayaa waxa uu maanta wacdaro xisbiga kulmiye iyo murashaxiintiisu ka dhigeen gudaha magaalada Borama waxaana fagaaraha khayriyada magaalada Borama saakamina subax ku soo qulqulayay mawjado taageerayaal oo horkacayaan murashaxiinta kala duwan ee ka tartamaya xisbul xaakimka kulmiye ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka waxaana munaasabadani maanta bulshada gobolka u dalkala soo qayb galay wasiirada wasaaradaha ganacsiga iyo beeraha iyo sidoo kale maamulka gobolka u daliya kan degmada Borama mas'uuliyiinta kala duwan ee xisbiga kulmiye odayaal waxgarad siyaasiyiin aqoon-yahan iyo badiba qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Borama runtii maanta hadal ma badinayo maanta waan idin mahadnaqayaa maadaama ay racaytu kulushahay aad soo xilqaanteen aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida taageeradiina u muujiseen eed ugu muujiseen xisbiga kulmiye eed ugu muujiseen xildhibaanada ka sharaxan xisbiga kulmiye waad mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan idinka mahadnaqaynaa sidaad u soo galbiseen waad isku mahadsantihiin guud baan noo rajeenayaa maalinta koob iyo soddonka May diilaa waaxidka weyn yiraahdo sidaad ugu hiilisaan fartan ugu hiiliya waxaan idin leenahay kadafkada u rooro kulmiyow kaalay kabaha soo gasho kulmiyow kaalay kab waliba joogo kulmiyow kaalay taageerayaasha isku keenay quruxda inta leeg aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay waxa tiin xisbigii qaranka xisbigii dawladnimada tihiin قول بعد موجسين الحمد لله عاد بعد بحثتهم مالين بايدي هدي مالتي قول شايدين هدي الحمد لله نجيونا مدلبين السين مالين تقالين تنا وإنا بلتا بوغتا الحمد لله شرفتنا runtii waxay ka muuqataa fagaarayaasha aan taaganahay dadka qiimaha badan leh noo muuqda waxaan idin rajaynayaa inaad u codayn doontaan inaad soo saari doontaan guusha xisbiga kulmiye kulmiye wuxuu ku xisaabtamayaa inuu codadka ugu faraha badan ka helo guud ahaan gobolada Soomaaliland waynu quusnaa cid kasto inala tartamaysay maanta waa quusgoyseen waxaan leeyahay taageerayaasha xildhibaanada xisbiga kulmiye guulaysta baan leeyahay waa mahadnaqayno xildhibaanada isku sidkan ee golaha wakiilada iyo deegaanka maanta sawiradoodii iyo boorarkoodii iyo calaamadihii loogu coday lahaa halkan ku soo bandhigay iyo awooddii iyo taageeradii xuduuddii ay ku lahaayeen bulshada soo dooranaysa runtii waxay muujiyeen awooddii ay ku lahaayeen bulshada dhexdeeda iyo taageerada iyo kalgacalka marka mahadnaq badan baan idin jeedinaynaa maalinta 31 May ee ah maalinta codka lagu hubsanayo nin walba xildhibaanka uu maanta u soo baxay ee uu taageeray waxa looga baahan yahay inay maalintaana ku hubsadaan codka waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha sharafta leh ee taageerayaasha murashaxiinta u ah ee u adkaystay cadceed ee xalay soo jeeday ee maanta cadceed taagan aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa murashaxiintana waxaan leeyahay aad iyo aad baan idinku moogtahay aw guriga idin leeyahay in dadkiinni aw sidaa idiin daba joogsado aad iyo aad baan aw guriga idin leeyahay waxaana filayaa oo rajaynaya inaan ka baryaa maalinta foodku u dhacayo ee bishu ay 31 tahay sidaa cadceedda aad ugu adkaysanaysiin si ka sii daran ugu adkaysta